xubno ka mid ah qurba-joogta reer Sanaag oo ka soo kici timay carriga Ingiriiska maalmahanba ku sugnaa magaalada Ceergabo ayaa booqday xaafadaha ay ku dhaqan yihiin qoysas danyar ah. Waxaana xubnahan hogaaminaya Sadciye Maxamed Caruus oo ka socota ururka tabarucaadka gobolka Sanaag ayaa waxa deeqa isugu jira lacag iyo raashin ay gaarsiiyeen qoysas danyar ah oo haysta caruur wax ka qabta dhinacyada dhimirka iyo curyaamin. waxaana halkaas ugu horeyntii ay gaarsiiyeen qoys ka mid ah qoysaskaasi oo gaarsiiyeen $150 Mareykanka iyadoo halkaasna ay gaarsiiyeen $140 halka qoyska kalena ay gaarsiiyeen $100 Mareykanka. waxaana ay qoysaskaas ay haystaan caruur curyaamin oo wax ka qabta dhinaca dhimirka isla markaana xaaladahooda caafimaad aan waxba laga qaban karin dhakhtarada dalka. xubnaha sidoo kale ay booqdeen Caasho Shiro Qodax oo ka mid ahaan jirtay qurba-joogta reer Sanaag isla markaana socdaal ku timi magaalada Ceergabo. waxaana halkaasi ka soo gaaray xanuun dhinaca dhimirka iyadoo imika muddo 7 sano ah la ildareer xanuunkaasi ayaa waxa xaaladeeda caafimaad ka muuqata xaalad adag oo duruufeed. waxaana xubnahan ay sidoo kale ay gaarsiiyeen deeq raashina عاول حسين عرب وهست لبا عرورة وحكا قبادين عريامين halkaasi ka hadashay Sadciye Maxamed Caruus oo ka mid ah qurba-joogta reer Sanaag isla markaana deeqahan soo gaarsiisay dad yowgan jilicsan ayaa waxay faahfaahin ka bixisay deeqayowgan ay u soo direen qurba-joogta reer Sanaag ku dhaqan carriga Ingiriiska taasoo ay ugu tala galeen bisha Ramadaan sidii ay dadkan jilicsan ay u soo gaarsiin lahaayeen. waxaana ay Sadciye ay tilmaamtay in deeqdan noqonayso tii saddexaad ay soo gaarsiiyaan dad yowgan jilicsan ee tabaalaysan. waxaana qurba-joogta reer Sanaag ugu baaqday in ay dadkooda iyo dalkooda ay u soo gurmadaan isla markaana ay ka wada qayb qaataan horumarinta gobolkooda. waxayaguna halkaasi hadallo mahadnaq iyo ducaa isugu jira ka soo jeediyay dadyowgii la soo gaarsiiyay deeqdan isugu jirta lacagta iyo raashinka. waxaana ay qurba-joogta reer Sanaag mar walba ay la socdaan dadkooda jilicsan. Cali Aadan Daahir, shabakadda wararka caalamiga ee Harwanaag News, magaalada Ceergabo.